shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maantay dulmi lagu samaynayo gobolka hiiraan oon annaga aan joogno caasimaddiisa annagana maamulkiisa heer gobol iyo heer degba aan mas-uuliyin ka nahay dadka reer hiiraan dadkii alla ugu calfana ay joogaan dowladda hirshabeellena ay wakiil uga yihiin dadka reer hiiraanna ay wakiil u yihiin dowladda hirshabeelle waa dowladdayni dowlad kalama qabno waxaanan rabnaa inaan sharafkeedha ilaalinno dowladnimadeedha ilaalinno wixii cadow ku uhu ay cadowgaayna noqdaan dowladnimaduna ma ahan qofna ma ahan qolona ma ahan kooxna ma ahan dowladnimadu waa wax la ysku darsaday oo dadkii labadaas gobol joogay ay ku heshiiyeen ay isku darsadeen nibana saami ka fadhiyo annaga wakhti dheer ayaan hirshabeelle ka soo shaqaynaynay dadkii soo aasaasay aan ka mid ahay hal abuurkeeda ay qaarna dhigteen qaarna nool yihiin dadkii wakhtiga dheer ku soo bixiyaan ka mid ahay dadkii dhiig iyo dheef ku soo bixiyaan ka mid ahay dadka reer hirshabeelloo hadda mas-uuliyadda haaya qofka siyaasi ahaan ugu da'weynaana laakiin waxaan is leeyahay qofka ugu haara badanaad tahay qofka ugu takano badanaad tahay qofka ugu eeda badanaad tahay qofka qodxaha ugu badan ku jaban yihiinaad tahay hirshabeelle alcadligeed qofka deynka ugu badan ku qabaad tahay si hirshabeelle u dhisanta alcadligeed qofka meydka ugu badan in hirshabeelle suurto gasho ku duugayaana dhaawaca ugu badanna ku daawayaana mar hadday saas tahay markaanu hirshabeelle milkiilayaashay dhan ka mid ahay hirshabeellena dadka labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexey ka dhexaysaa waxaa ku tagrifalaya kuwa aan hirshabeelle iyo hiiraanba meel ka deganayn laakiin wax lagu wada heshiiyey oo oon heshiis lagu yahay waay waxaan halkaa ka salaamaynaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle waxaan kaloo halkaas ka salaamaynaa golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka meel kastay joogaan ma ahan in hirshabeelle xun tahay ma ahan in hirshabeelle qurux daran tahay laakiin waxaa qurux daranu maamul xumada waaye waxaa qurux daranu cadaalad darrada waaye annaga maanta shirkan jaraad waxaan ka qabanaynaa madaxweynaha hirshabeelle cadaalad darrada uu ku sameeyey gobolka hiiraan oonu hirshabeelle wakiil uga nahay dadka reer hiiraanna wakiil uga nahay cadaalad darradaasi waxay tahay maalinka uu madaxweyne noqday iyo ilaa hadda la joogo waa muddo sanad iyo 2 sano ku dhow waan umalaynaa hiiraan maxamed cabdi waare inuu dhibaato u geysta ma ogiye maalin caagbiya kuma soo kordhin maalin iska rogo ciida kuma soo kordhin maalin bustoolad amniga lagu sugo kuma soo kordhin maalin xaajiyo ciida ku fulo kuma soo kordhin muddo 2 sano ku dhadhowna waxuu lahay lacagta koontaha lagu shubay hiiraan maamulkuyo usan biil qaadan ciidanka amniga yaan wax la siin wolbaana sastabka loo marsiina kadibna wolbaana la barwaaqaynaahoo wax kale loogu beddela 2daas sano wolban baarlamaanka hirshabeelle wax mushaar ou siiye ma maqal golaha wasiirada hirshabeellena wax mushaar ou siiye ma maqal booliska ciidanka booliska hirshabeellena wax mushaar ou siiye ma maqal hiiraankii lacagtaas laga qaadayaana iska rogo ciidana laguma soo celin bustoolana laguma soo celin xaajiyana laguma soo celin heer dadka reer hiiraan inay isnacaan ay siday isku xigaan ay isku nacaan oo gaarsiiyey sababtu waxay tahay jifo kasta sidii gorgorado dukaan suran oo midba tow la gorgorinaa oo 3 biloodba mid kor u qaadayaa 3 bilood kadib midkaasu waxuu rabo mugo xoogaa ka coslaysto mid kale u ku beddelaa ilaahu berimay kama helnee wuxuu yidhi ninkii ilaahu berimay ka helnee baadiha lagu gelin
ilaahay oo madaxweynenimo lagama raacdee ilaahay oo uusan dadkayna isku dirin wax mugow magacaaba cadaalad darrow ku magacaaba wax mugow dhiiba cadaalad darrow ku dhiiba warka mugow sheegaa beenow dadka u sheega wadaadaduna waxay loo sheegeen qofka mas-uulka ah oo hogaamiyaha ah hadduu dadkiisa been u sheego waa nin cid abaar joogta iyo u sahniyey meeshii roobkii galay meelan hay yidhi waa fiicneede ha loo raro ilaahayna maalinta yowmalqiyaama marna ma damoodaan layidhi iyo malaa'igihiisu culummadiina way dhegaysanyahay gu soo beynid hadda walaalkay maxamed cabdi meeshaan mugoo imaanayey aniga waxaan joogay buundada ceelgaal oo biyihii roobkii faraha badnaay gooyey 5 habeen iyo 6 habeen waxaan moogay idoo roob igula da'ay oo yimid waa yimid 6 saaco habeennimo anoo ceelgaal roob igula da'a wiilal yaryar oo asiga uu adeer iyo mid uu yahay mid uu abti u yahay ay yiraahdeen madaxweynaha biri imaanaya aniga gobernatoora ayuu soo waco gudoomiye biriyaan ku imaanay ogow ima soo dhig wiilashaas dhan loo soo xiriiro adeerku yahay aniga isoo sheeg 6 saaco habeen uu isoo sheeg suuxina meesha kolay ka soo galay airportka ka soo dhaweey qolkaygaan uga baxay halkaasaan deeqiyo dayn ku siinay asiga waftigiisa 20 taasoo casho ila joogay maalin gobolka Hiiraan oo wakiilku uga ahay wax igama weydiin wuxuu la showray taliyaasha ciidamada maamulka inta iga hooseysa warkiisuna wuxuu ahay maayirka magaalada ayaa xukuma gudoomiyaha degmada iyo warar u eg maxamed wuxuu gaaray asoo madaxweyne Hirshabeelle inuu keenayada beledweyne cashuurta laga qaado ilmaha jooga lacagta ma qaadan kartiin uu yiraahdo asuu ka xisaabiyo asoo anaga loo sheegay anuu wilayay intaan meeshaan gobernatoor ka hay bangina ma tigin keelana ma tigin shaqaalana isma arag ninkay ugu xigaan u diraa waxaas beledkaan wixii yimaadana gudoomiyaha degmadan u diraa haddaan intaan jooga saasaan samaynaa haddii alla idmo wax alla wixii beesha caalamka ku deeqday Hirshabeelle ama dowladda Soomaaliyeed ku deeqday Hirshabeellena gobolka Hiiraan wax kama soo gaarin hadday gaadiid ahaayeen hadday shaqaale ahaayeen nuuc kasta ay yihiin gobolka Hiiraan wax kama soo gaarin intaan Hirshabeelle ka mid ahayn waxaan mas-uuliyiinta Hirshabeelle ka codsanaa gobolka Hiiraan gobolka Shabeelle Hirshabeelle waa ka dhaxaysaaye ilaahay ka cabsatiin aakhira wax leedii weydiinay haddii galaas biyaa Hirshabeelle leedahay la keeno labaha loogu dhigo hadday 2 galaas yihiin 2 gobol hala kala siiyo dadka degana baalasi wixiisa lagu siiyo xaquuqay wada leeyihiin احلو وسدحا كوغا لي نكاد كاي حتى يا نكادو اي حتى يا الهي وينا كوغا لي واحد هيرشبيل لو مامولا او محمد عبد واريرو كو غاميه لا ربو هيرشبيل روب كو دغي ما hadii lagu fiirsadana waa laga daba luma wala xun qofkii iska diidana ilaahay wax ka hadlayma wax xun ilaahay raali kama ahan wala xun ilaahay aba xumaata diiday wax xun qofkii iska diida ilaahay wax ka hadlayma wareer shabeelada ka iska leh qof adu ko xusbayna hor ilaahay ka cabsoonayn ha ku dheelina Hirshabeelle oo xaquuqda dadka Hirshabeelle yaan la duudsiinin ilaahay ka cabsada mas'uuliyadiina gudta wasiiradu wasaaradooda ka shaqeeyaan baarlamaanku sharciga ha ka shaqeeyo shacabku ka wakiiliye maamuladu ha ka shaqeeyaan gobolada iyo degmooyinka madaxna hal isku aado amar hal ay siiyo waxna laga weydiiyo qof walba meeshii loo diro dawladda wakiil uga ahay laakiin madaxweynaha ahaana gobernatooraan ahaana gudoomiye degmaan ahaana maaliyadda ana ahaana amniga ana ahaana
wasiiradana يعني waxaas waa dee waxaas haddii la yeelaa qolo taagiyaal haysataa waxaas wax ka yar samayn jirtay waana laga diido waa ogtihiin oo taagiyaashoodii meeshii u dambaysay iyo waa ogtihiin karabiinadii lagula dagaalamay waa ogtihiin ilaahay walaxuna ka raalli ahayn oo dulmihu ma shaqay karaan maxamed cabdi waare meesha inta lala joogana dulmiyow lagu samaynaayey iyo cadaalad darro annagana waa ka xishoonayna mugow oon idila hadlo jawaab ka siiya wuxuu ka shaqayna aan islahayn lalama hadlinoo waa laga dhuuntay diyaarada ii fadhidaa soo loo libisano qolkii ka soo baxay anuguna haddayna gacanta ka qabano geed ku xira mayn waxaa dowladda hirshabeelle u sheegaynaa oo madaxweyne ku-xigeenka u sarreeyo labadeedna gole odayaasheeda ugaasyadeeda waxgaradkeeda baarlamaankeeda dowladda dhexa ku jira iyo golaheedna wasiiradeeda dowladda dhexa ku jira madaxweynaha soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa arrinta gobolka hiiraan iyo hirshabeelle in la soo farageliyo arrinta gobolka hiiraan iyo hirshabeelle in dowladda soomaaliyeed iyo dadka wax garanah oo hirshabeelle soo farageliyaan ayaan codsanaynaa wuxuu maxamed cabdi waare ka shaqaynaa ma qaadanayno mana qaadan doonno maxamed cabdi waare ciidankii waardiyeynaayo oo etoobiyaanku soo weeraray cawo madow oo waaga iyo salaadda bugii la dukaday ah 10 saacaan isla suxuuranay ciidan etoobiyaana iyo kuwa amisooma imaanaya ma dhihin ciidankii oo qoryo isku haaya oo wiilashaas iyo waardiyeynaayo suu kor looga haayo etoobiya yani wataan ayaa anugu ku soo baxay alxamdulillah nimankii amisom niman sharaf lay ahaayeen hiiraan wax badan ka soo maray ahaayeen ama etoobiyaan ha ahaadaano ama ha ahaadaan jabuutiyaan abaalaan u haynaa wanaagaa laga dhexeeya wada shaqaynaa laga dhexaysa ayaga waxaan ka codsanaynaa laftigoodu inay arrinta waxa meesha ka jira ay dowladnimo waa yaqaaniine ay maadheydkooda kaliya ayna fiirsane cid kastoo qaldan waxay ku qaldan tahay ama laga qaldan yahay ay fiiriyaan dadka ka codsanayno inay garsoor loo noqdaan ayay ka mid yihiin annaga waxa maxamed cabdi waare wax ku maamulaa ma yeelayno waxaan beesha caalamka u sheegaynaa oo dadka soomaaliyeed u sheegaynaa oo dowladda soomaaliyeed u sheegaynaa oo dowladda hirshabeelle u sheegaynaa oo shacabka hirshabeelle u sheegaynaa maxamed cabdi waare wuxuu wax ku maamulaa aniga waa diidnay warkan sheegaana war yuusuf dabageed maahan warka aniga sheegaa ee warkii reer hiiraan ii dhiibeen waaye waxgaradka reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye ugaasyada reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye odayaasha reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye ganacsatada reer hiiraan warkay ii dhiibeen waaye shili soomaali hirshabeelle inteeda kale waa laga qaataa hiiraan lagama qaato waxaana dhibaatadaas loogu horreeyey maxamed cabdi waare mugow madaxweyne loo noqda wasiirka maaliyaddaa yidhi shili soomaali wax laguma qaadi kara cashuurta dollara lagu qaado kadibna shili soomaaliga dadku waaba ku dhibaayay mugaasaa laga tegey dadkii maskiintahayna saasoo ku bacay maxamed cabdi waare soo madaxweyne u noqda hal maalin kama hadlin dadkaa dhibaatadiisa haddaad u sheegtana wax kalow kaaga jawaaba aniga warkan ku hadlaa waxa waaye marka warkii reer hiiraan ii dhiibeen dad badan oo saaxiibanahay iyo dad badan oo madaxii ah iyo dad badan oo aan xushmad u haayo aan iska soo gaarna warka waa iireen laakiin anugu khayaar malhiyo reer hiiraan aan madax u ahay waxay sheegi yidhaheen ana sheego u haya waxay reer hiiraan ogol yihiin laakiin waxay xaq u leeyihiin inay qaataan waxayna xaq u lahaynna laga dhaafo maxamed cabdi waare soo joohor jooga intoonu ii imaan hadduu dekareetayga soo saarnaa xilka qaadisa aniga hadduu gabadhii soo diri hadduu wiilii soo diri xilka waa ku wareeji lahaa awal anugii xilka layga qaado waa wareeji jira , laakiin hadda dil kadib
dil kadib reer hiiraan waxay yidhaahinaan yeelou haya reer hiiraanna hirshabeelley ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenkaa madaxweyne ku-xigeen u ah baarlamaankaa baarlamaan u ah golaha wasiiradaa wasiiro u ah waxgaradka reer hiiraana iyo waxgaradka hirshabeelle oo shabeellaa dhaxaya hiiraana dad u ah waxaan ka codsanaa dowladda federaalka oo dalka soomaaliyeed mas-uulka ka ah hadalkaa si fiican inay u dhegaystaanna waa rabi lahay inay aad ugu joogsadaanee aad u fiiriyaanna waa jeclaa lahay dadka reer hiiraan oo dadka soomaaliyeed ood wakiilka ka tihiin ood mas-uuliyaddu haysiin ka mida xaaladdiisa si deg dega uga soo gaara si deg dega u soo farageliya dalka adikaa dowladdii qaranka ka ah dowladdii qaranka adikaa ah qarankii soomaaliyeed adikaa wakiilka ah baarlamaanka xubnaha baarlamaanka iyo xubnaha wasiirada ee ka soo jeeda hirshabeelle waxaan ka codsanaa gobolka hiiraan iyo deg deg wax uga qabtaan iyo maxamed cabdiwaare waxaa ka dhex jira iyo xuluufadiisa maxamed cabdiwaare iyo xuluufadiisa weligay madaxweyne soomaali u madaxoo xulufo samaysana sidii nin oo shuftaha ma arag maxamed cabdiwaare ka hor dadkaaba madax u wada ahay horta anugu ye waxaan aan la samaysanaha koox daxeeyihiin aniga dadkaaban madaxweyne u ahee xaa kooxii daba dhigay qof walba wuxuu xaq u leeyahay maan idhaaho maxamed waa cafici waayday marka waxaan beesha caalamka u sheegaa oo dowladda soomaaliyeed u sheegaa oo dadka reer hirshabeelle u sheegaa dadka reer hiiraan waxaan isku sheegnay ina maxamed cabdiwaare madaxweynenimada hirshabeelle ku fillayn hadduu gobonatoore ka jecel yahay dee istiqaala ha qoro gobonatoorahana hawsoo madaxweyne ninkii meesha ka noqdo ha warsado dowladnimo iyo madaxweynenimona ma ahan maamul hay-adeed ma aha waxaa laga yaabaa in wax badanu dadka iskaga qaldan yihiin dee maamul hay-adeed ninka wax kuu dhiiba ama wax kusoo dheeraa muga horo adigana ciddaad rabtaad wax siin kartaa ciddaad rabtana waa u diidi kartaa laakiin wax dawla saas maaha dad wax isku darsaday saas maaha dad baabu shayn iskula joogaa saas maaha saas laguma maamuli karo wax dad ka dhexeeyana sidii dukaamaad leedahay looma maamuli karo dadka maad dhashay adugu waxaan beesha caalamka u sheegaa oo dadka soomaaliyeed u sheegaa oo dowladda soomaaliyeed u sheegaa gobolka hiiraan amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo sharafkiisa iyo dowladnimadiisa anaa hirshabeelle uga wakiila dowladda soomaaliyeed anaa uga wakiila waxaa ku qaldana in laga qabtana ma diidaayo dadka reer hiiraan waxay ku qaldan yihiin in laga qabtana ma diidaani waana idin sheego anugu warka aan sheegaa hadda wuxuu yahana kaligay melihi hadda usan yahana kaligay melihi reer hiiraanaana reer hiiraanaa iska leh haddou eed leeyahay reer hiiraanaa iska leh haddou ammaan yahana reer hiiraanaa iska leh reer hiiraan dib u heshiisiintooda in wax laga qabto maxamed waa dhibe meel aan aadayo baabuur aan shidaal ku shubto meel lagu diraa tiga haddaad tiraa maxamed waa kuu caroona ciidan boolisaan baabuur siiya ama bushaar siiya haddaad tiraa waa kuu caroona bismi illaahi raxmaani iraxiim ma dowladan ciidan loo samaynaynaa weligay arka oo haddana dowladnimo laga rabo walaalayaal annaga waxaan ka cabanaynaa waa waxaas waxaan dadka reer hiiraan u sheegaa oo dowladda hirshabeelle u sheegaa oo dowladda soomaaliyeed u sheegaa oon beesha caalamka u sheegaa oo amisoomta lala shaqayda u sheegaa heesa tarfoor amniga gobolka hiiraan iyo dhaqaalaha gobolka hiiraan iyo shacabka gobolka hiiraan
iyo siyaasadda gobolka hiiraan anigaa guddoomiye ka ah oo wakiil ka ah anigaana laygala macaamilaya wiil maxamed cabdi waare wiil dhallahou keensaday oo ilma adeer nahay oo yidhi lacagta iyo aruuriya mid kaloo xagga jira iigu soo dir wiilkaasu dadka reer hiiraan ou ka mid yahee hadduu dadka reer hiiraan oo xukumo ku wanacsan yahana waxbaan isla meel dhigi doonaa haddau maxamed waxay isku sheegeen ou rabana maxamed meeshaan madaxweynehu ka yahay anigaa goobnatoore ka ah maxamed cabdi waare waxaan isku qabannay lacagta dhaqaalaha gobolka hiiraan laga aruurinayo koontaa laygu shuba aan hirshabeellana lahayn gobolka hiiraanna lahayn adigana kaa warsan mahay wiilal yarar iyo gabdhar yaraan u samaysana dadka shaqeeya ciidamada amnigana lacagta waa ka gooyna dad shacab ahna waa oon xisbi ka rabana waa u qeyqaybinoo yoomyaha la siyaan leehay joohar koonto ku taalaana lagu shubo agaasimaha madaxtooyada oo maamula iyo laga yeeli mahaa ee hirshabeelle waxay leedahay aan cayinno boqolkiiba lacagta soo xaroori gobolka hiiraan waxaa lagu maamulaa oo maamulka heer gobol heer degmo lagu maamulaana aan isla cayinno maxamed intaasaan isku qabannay